آدي آدبان وهم بليينيا حفلة قرصة بدن قيمها بدن ما أنت كلا وليغيان لبدا شنن من بوليسكا هروهاي من دين كلا وليغي مر لبعض وحنا بليينيا وحقوتك هلك laga sheegay شننka xilka ka degeeya محمد آدم سقدي dabagale howlkan quruxda badan ee uu sameeyay iyo dhismayaashii halka wanaga tusay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin isaga iyo raggiisuba wixii wanaagsan ay qabteen aad baan ugu hambalyeynaya waxa laga yaabaa in la yiraahdo qoladan wadan mucaarad bay ahaayeen dabagalana waa ninkii xidhxidhi jiray oo way dafireen qofkii wax wanaagsan qabta dafireen maanta se maadaama xafladiisii loo dabaaldegayo intiisa wacan baynu ammaanaynaa dhiirigelinayna waa waxaa noogu xusan ciidamada in laga shaqeeyo ee aanu brograamkii xisbiga ee uu ku guulaystay aanu ka dhignay qodobka koobaad ayay noo tahay ciidamada in la horumariyo la dhiso la hagaajiyo oo ciidamada qarankee kala duwan kuu yahayba tacab la geliyo oo la horumariyo marka in sidooda mid walba loo dhiso markaan leeyahay militarizationka laga yaabo inaan dareen ka qabo militariga ma dhaliilayo ma caayayo hoos u dhigi maayo laakiin se labada shaqo ay dabeecadoodu kala duwan tahay shaqada militariguna waa shaqo gaar ah shaqada booliskuna waa shaqo gaar ah booliska waxaa la baraa sharciga waxaa loo barayaa si uu ilaaliyo bulshada militariguna waxaa la baraa siduu cadowga uga hortago labada dabeecadood baa kala duwan marka ujeedadu waa taasuune labada ciidan waa laba ciidan oo qaranku leeyahayo waa waxaanu ku faanayno waa waxa cududii qarankanu lahaa waa waxa dalkanu ku taagan yahay waa astaantii qarankay ka mid yihiin waa noo qiimeynayna sidaan calanka u qiimeynayno inay astaanta qaran ka mid yihiin markaan taa ka hadlayo waxaa la odhan jiray reer miyigeennii oo nolosheennu ay ku aroorto reerka geediga ah markuu badanaa kaynta maray walaa kayntiiba baaba'da iminkee haddaan ka hore baaqin oo ka dhexe baaqin oo ka damba baaqin way kala lumaan u fiirso waa hoggaamin uu ka fursan weyday reer geediya nolosha oo dhammina way u baahan tahay waxaan leeyahay dowladnimada haddaan sharciga la ilaalin oo dadka la ilaalin oo haybadooda la ilaalin ama haybadda guuda qarannimada la ilaalin waxba inoo tari maayaan inaynu dhisno guryaha iyo laamiyadu haddaan bulshadu dhisnayn iyagaa guryaha iyo laamiyada duminaya waxaynu u baahannahay inay bulshadu dhisanto qiyamkeeda akhlaaqiga dhismo barashadeeda sharciga in loo hoggaansamaa ay dhisanto oo aanay isku dhib mudan isaga iyo inanka booliska ah oo uu yaqaano sharciga raacistiisa waxaan u arkaa inaynu meel fog ka marayno oo aynaan dhoweyn oo bulshadeennu u baahan tahay tacab aad iyo aad u weyn waana sababta keenaysa inuu bato dembiyadu bataan hadduu qofku yaqaano waajibkiisa sharci dee dariiqiisa sharci buu mari haddii la ilaaliyo oo ka booliska aanu ku xadgudbin ama ka ciidanka aanu ku xadgudbin ama ka dowladda haysta ee baawarka jooga aanu ku xadgudbin oo dadka la ilaaliyo dadkuna ilaalintiisu marka la eego maqaasidu shariicada
diinteena xaniifka ah shanta ilaaliso marka laga yimaado diinta iyo maalka saddexda kaleba qofkay soo galaan kastoo maalkuna qofka ku aroorayo waa maalkiisii qofkii diintii baa la ilaaliyaa aqligii baa la ilaaliyaa noloshii baa la ilaaliyaa maalkii baa la ilaaliyaa cirdigiisii baa la ilaaliyaa intaa mid waliba qofkii ku arooraysaa waa maqaasid shariica waa waxa shariicadu ay culimadu yiraahdaan waa maqaasidii u ahayd saaska iyo saldhigga marka qofka ilaalintiisu mucaarad iyo muxaafid ku doona ha ahaado xuquuq uu leeyahay weeye oo ilaahay siiyey oo dastuurku noo damaanad qaaday haddaanu shalayto mucaarad ahayn maanta ku farxi mayno in mucaaradka loola dhaqmo si ka baxsan sharciga ee waxaanu ogolahay in sharciga loola dhaqmo waxaanu sidoo kale ogolahay in mucaaradkuna yidhaahdo shalayna ogolayn waa sharciga inuu raacayna in sharciga jabin isagana ha la ilaaliyo isna sharciga ha ilaaliyo waa laga yaabaa waxoogaa mucaaradnimadu xayraan bay leedahay oo haddaa waxoogaa xayraan lagu arki jirteen ama kuwa dambe aynu ku aragno dee dowladnimadaa loogu dulqaataayo waxoogaa xayraana way iska leedahay xoogaa xayraana way iska leedahay marka waxaan leeyahay ciidamada kala duwan dadka muhiimadda ale in la ilaaliyo haddaan dadka la ilaalinna ciidankii iyo haybadii iyo qarannimadii midna waxba tari maayo waayo waxa loo adeegayaa iyaga ah waxa la difaacayaa iyaga ah waxa loo dhimanayaa iyaga ah muhiimaddii koowaad bay leeyihin oo u baahan yihin runtii in la ilaaliyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ciidamada ku ammaanayaa doorkooda ay qaataan waa kuwaynu ku jiibsanno waa kuwa aynu inagoo raaxaysanayna soo jeeda waa kuwa furinta iyo jooga xuduudaha ee u dayacma ee u baahan daryeelka sidaa laajirgeedna siyaasaddii xisbigu waxay ahayd in daryeelka koowaad la siiyo 250 loo kordhiyo mushaarka boqolkiiba 250 waana tii madaxweynuhu ku dhawaaqay digreeto ku soo saaray ee bilaabantay ma yahayn hadal la iska lahaa ee waa mid ficil noqon doono la fulinayo insha Allah taala ciidamadana waxaanu leenahay iyadoo sidaa la idin ilaalinayo haddana waxaan aaminsanahay inaan weli abaalkiina la wada gudi karin ee waxa qiimaysaan waxa qaadanaysaan ha qiimaynina waxa qabanaysaan ujeedada u qabanaysaan oo ina qaranka iyo ummaddiina u adeegaysaan qiimeeya idin malihin waxa la idin siinayaa abaalkiina ah ee waxaanu leenahay bulshadiina waxa u qabanaysaan ayaa wax walba ka weyn qarannimada iyo dalka ayaa wax walba ka weyn taasaa qiimaynta leh taasaa hataa dibta u marayso ee darayada iyo dacyada u marayso waxaan qirayaa inay boolisku la kulmaan dhibaato badan kala kulmaan bulshadeenna oo aan u diyaarsanayn sidaan sheegay oo aan u jabsanayn sharciga inay dhibaato badan kala kulmaan waxaan sameeyaa ha loo dulqaato oo ha la ilaaliyo oo ha la baro oo ha loo nuglaado ha loo dabacsanaado way baran waana miri jirta inaynu in badan u lahayn qaran yaroo curdina baynu inagoo dhowr iyo 30 sano jiray oo wax badan aynu qabsan lahayn aynu ku gaabinay inaynu nahno weli qaran yaroo curdina baynu nahay war way wax badan aynu dayacnay ayaa jira markaan leenahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inuu moodo in xukuumad ama shakhsi gaara loo jeedo guud ahaan baan u jeedaa markaan leeyahay dadka in la dhiso oo bulshada la dhisaa oo qiyamkooda la dhisaa
shalayto marka laamiyada dhisayay ee dawladda u shaqaynayay waajibkaas ay saaray duruuftaas aan arkay haddana waxa ii muuqata inay mid ka sii weyn tahay laamiga aan dhisay iyo guriga aan dhisay inuu duminayo qofku haddaanu dhisnayn haddaanu horumarsanayn haddaanu aqoontiisii dhisnayn haddaanu ilbaxnimadiisii horumarsanayn haddaanu law abidance lahayn oo sharci raacnimo lahayn sharciga inuu yaqaano noo kale inuu raaco oo ku dhaqmo marka runtii shaqo weyn baa inoo taal gaar ahaan xukuumadda cusub ee aan xisbigeeda guddoomiyaha u ahay mas-uuliyadda innagaa la wareegnay oo laynaga sugaya tacabku meel kastuu yahay innagaa maanta talada haynoo laynaga sugaya waxaana leeyahay sidii aynu u sheegaynay u qoraynay ayaa maanta ficilkeedii laynaga sugaya bulshadana waxaanu leenahay hana laga sugo hanaloo dulqaato hanaloo sabro diyaar baanu u nahay inaanu kaalintaa buuxinno oo wixii naloo igmaday ee naloo doortay ee aanu ballan qaadnay ee aanu qoray inaanu fulino baanu diyaaruna oo ay ka mid yihiin ciidamadan aynu maanta joogno daryeelkooda iyo horumarintooda aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan uun kaga baxayaa ciidamada boolisku waxay kaga duwan yihiin markaan lahaa sharciga cadaaladda la doonaya asaaskeedu waa meeshuu ka bilaabmaya iyo ilaalinta ee bulshadu u baahan tahay cadaaladdana waxaa la yidhahdaa justice must be done waa in cadaaladdii la qabto haddana waxaa laga daba keenay markii hore phrase saasaa dunidu isticmaali jirtay haddana waxaa laga daba keenay justice must be seen to be done cadaaladdii waa in la qabtaa weliba la arkaa in la qabtay